بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دروستeenii baa halkan ka wadana waxbarashada hoose asaasiga ahayd maanta waxaan dhigaynaa qoraalkii xuruufta carabiga oo runtii iyadoo noqotay qayb laga maarmaan marka aad ula socda leenka ugu fadhiisanayaan kuwa leenka xagga sare uga baxaya kuwa leenka xagga hoose uga baxaya kuwa qaybna kor u baxaysa qaybna hoos u baxayso ألف كي وهرية ألف باء بحيق سبعة تاء دي بحيق سينا كون هو اسكو من لبضني يثاء saddexdaas iyagoo isku mid line-kaasay ku fadhiisanayaan ear bay sidaa uga baxayaan jimka marka la gaadho qaybna way ka sarreysaa qaybna way ka hooseysaa halka laga bilaabayo iyaduna muhiima xaadii baa timi iyo khaadii saddexaas waa isku mid dhibcahay ku kala duwan yihin marka meesha laga bilaabayo iyo meesha lagu dhammaynayo ayaa aada u muhiima markay qoraalka noqotona line-kaa marka la qoro ama qof aad u dhigaysid wax la qoro line-kale laguma daro halkan baa la jeexjeexaa layman baa saa loogu sameeyaa maan ujeednaa columns dabeedna waxa weeyaan alifkii baa la qorayaa mar kale alif 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 baadii baa la qorayaa baa ba laymankaas marka lagu ilaalinaya qofku laynkii inuu raacay iyo inuu sidii u qoray kuwana waa la mid waa loo saasaa loo laymo loogu sameynayaa hoose si aan u leexleexan laynkana waa inuu raaca laymanka kale waa inuu usoo gudbin waayahaan sii dhammayno innaga waxba feegari mayno waxaan uga jeednaa un dadka inaan tusno daal iyo daal ra iyo zaay labadaasuna waa isku mid laba inta badan isugu eegyihiin kaas waa siin kaasuna waa shiin labadaasuna waa isu eegyihiin waxay yimi saad iyo daad afartaa markaa laynkooda hoose waa isu eegyihiin waa isku mid laynka waxay ahaa nuun weeyi xaggooda hoose saad iyo daad kuwan markaa laynkiiba hoos uga dhaceen iyaga u fiirso xagga hoose kuwaasina korna uga baxsan yihiin xoogay hoosna uga dhacsan yihin oo laynku halkaas kaga dhacaya bartamaha labadii dood xaggaa waa saad bay iskaga mid yihiin laakiin kor bay u baxsan yihiin xaggaas waa saad baynu nidhi iyo ama daadka kuwaasay isku mid yihiin caynkii qaynkii baa yimi iyaguna sidii oo kale waxa weeyaan korna uga baxsan yihin hoosna uga dhacsan yihin sida loo qoriya marka hore qaybtaa markaad qorto qaybtaasaad raacinaysaa cayn iyo qayn fa'da madaxa yar baa loo soo rogayaa line-kaa la raacsiinayaa kuwaas bay isku mid yihiin baada iyo taada iyo faada واي
kuwaas bay isku mid yihiin sare laakiin intaasay dheerta qaafka iyo qaafka faada madaxa iskaga mid yihiin laakiin xagga hoose waa kala duwan yihiin qaybtaa qolyahan buu ay israacsan yihiin qolyaha siinka iyo shiinka iyo waa nuunkii xagga qaybta madaxa marka laga jaro nuun buu noqonayaa waayo kaafkaa yimi kaafku markuu keligii yahay sidaa wey laamka had iyo jeer way kala duwan yihiin xaggaa hoose qoladan uga eg yahay kastuu ka kooban yahay laam waayahay miimkii baa hadhay qaybtaa hoose hoos u dhacaysuu leeyahay isaguna waayahay halkaan oo laga bilaabayaa saasa loo socodsiinaya nuunkii baa yimi nuunka waxaan nidhi kuwaasaa nuuna kuwaa hoostoodaas waa nuun kan afartaa iyo qaafkaa iyo laamka laftiisa xagga hoose way isaga egyihiin inkastuu kastoo ka kooban yahay nuunkaas marka waxa weeyaan kuwaasun hoostooda wey intoodii hoose weeyaan waayahay maxaa inoo hadhay waawdii ba inoo hadhay wow waawdaasuna madaxa faada isaga egyihiin iyo qaafka xagga qaybta hoosena raada iyo za-daa weyaan waa ra iyo za wey intiisaa hoose ee soo rogaanay aan sii wadno haadii baa timi haada markaynu marna waa ha-du waxa weeyaan markay yar tahay noocaa tahay marna waxa weeyaan waa ha-daa weyne ah wax ku xidhmaan marka keligeed inta badan taa yar baa la qoraa marka keli tahay laakiin ta ku xidhmaan waa taas wow ha ya waaya yaadina waa nooca dhibcaha mar walba laguma dhigay marka marmar baan dhibca lahayn waayo halkaas marka waxa weeyaan qofka marka la barayo waxay noqonaysaa in layman loo sameeyo marba layn qura loo dhigo intaa marka loo dhigo alif ba ta tha ayaa la odhanayaa intaa dhamee marba qofku intuu dhiga karo qof maalin loo dhamayn karaa gebigeedana way jirtaa laakiin dadka qaar waxaa jira dee waa loo kala qaybiyaa intay fahmaan unbaa loo dhigaa intay fahmaan unbaa loo dhigayaa waxa soo raacaya intaa oo inaga maqan hamzaha hamsatulqadci iyo hamsatulwasli baa jira oo sidaa loo dhigo marka xarakadaabaa mar lagu daraa laakiin xaraka maaha waa dee waa xarf labada hamse alifkaasi iyo hamsayaasha adigu waa isku xarafuun haddana laakiin qeybaa laga kala dhigaa alifka waxa la yidhaha kan sukuunta leh unba alifa hamse markuwa uu maxay ahaataay markiisa horeba hamsatul wasliguna waxa la yihahdaa waa sukuun iska sitaa adigu hadal badan baa ku jira laakiin almuhim waxa weeye labadaas hamse iyagana qoraalkooda way la bartaa laam alifkaa lagu soo daraa isna alam iyo alif laakiin lakaasi muhiim maaha waayo laadu waxa weeyaan waa dee laba xaraf isu tegay calaa kulli xaal halkaas baynu u joojinaynaa waxaynu uga jeednaa sida loo qoraalka loo sameynayo marka xarafka meesha laga soo bilaabayo iyo meesha lagu dhammaynayo qof yar hadaad udhigayso haddaad wax u dhigayso dee waa inaad bartaa halku kasoo bilaabayo siduu u socodsiinayo baadii halku ka bilaabayo siduu u soconayo halku ku dhammaynayo siduu u wareegayo taadii siduu u soconayo
halka bilaabay ku dhumaynayo faadii markasta qaar baa cagaa ka soo bilaaba halka weenad uu qofku halka bilaabayo halka ka bilow xagga u soco soo noqo halka ka bilow sidaa u soco sidaa u soo dhamee halka ka bilow sidaa u soco meeshu ka bilaabmayo waa qofka halku ka bilaabmayo yaan xagga cagaha hoose ka bilaabine halka intuu ka bilaabo saa u soo socodsiin sidaa hayda haya sidaa kan halka ka bilaabo sidaa hayraado halka shiinkii sidaa u socdo saadka halka ka bilaabo lambaraa inta badan qaar lagu qoraa meesha qof ka soo wareegayo saadka halkaas laga sii bilaabayaa sidaa saasaa loo dhigayaa daada marka la qorayo marka hore intaasaa la qoraya madaxa taasaa dadna la odhanayaa tan kale waa lama intaasaa la qorayaa taasaa la odhanayaa caynka intaasaa la qorayaa taasaa la odhanayaa qaynka saasaa la odhanayaa tanaa marka daba la qorayaa facda halkaasaa laga wareejinaya marka hore qaafkuna waa lamid halkaasaa laga bilaabay xaggaa loo soconaya xaggaa laga soo wareegayaa kaafka xaggaasaa laga soo degayaa saasaa la odhanayaa calaamad dheer baa lagu qorayaa laamka halkaasaa laga soo degayaa halkaasaa laga soo laabayaa miimka halkaasaa laga bilaabayaa saasaa loo soconayaa nuunka halkaasaa laga bilaabayaa saasaa la odhanayaa wawda waa sidii faada iyo qaafka halkaasaa laga bilaabayaa waa lasoo wareejinayaa hada halkaasaa laga bilaabaya saa loo soconaya iyaada halkaasaa laga bilaabayaa soco soo wareeg marka kutub waxay jirta iyaguna xariiqaha iska leh oo qofka loogu talagalay inuu ku farbarto saa ula wareegayo kuwaasaa muhiim iyagana in la helo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu duruusta hore waxay ku jirtaa channelkan aalam islamic channel yahdo wixii higaada 10 darsi oo higaada ku jira oo qofka qur-aan ku barto markiiba halkaas youtube ka eega aalam islamic channel ama higaada qur-aankaba geliya google-ka iska soo baxaysaa telefoonada iyo emailada xagga hoose ku qoran qofkii pdf doonaya higaadaas inaan soo diro soomaali baa ku jira waxaa ku jira carabi waxaa ku jira duruus kale hanala soo xidho iska bilaash baa lagu soo dirayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu